kulankan ay iskugu yimaadeen waxgaradka coqaasha waayeelka mid kamid ah beelaha dega gobolkan Awdal isla mar ahaantaana uu ka soo jeedo gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliland Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle ayaa ahaa mid qada sharafa isla mar ahaantaana ay ku shaacinayeen inay ku biireen xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye hadalla kala duwan oo madashaasi laga soo jeediyay ayaa waxa goobtaasi ka hadlay qaar ka tirsan coqaasha iyo salaadiinta beeshaasi halka uu ku hogaamiyo uu ku horkacayo oo ah xisbiga kulmiyana ay garab taagan tahay wadadii la faranayo ma yihiin waxaan ku talagalsanahay sharafta aadna siiseen sharafteeda oo aan soo bixin xisbiga kulmiye taaganahay maanta kulmiye waxaan garab taagnahay Axmed Yaasiin dalka daacad u noqdaa waxa way midhaheegu cunaa innagana magaceena iyo maalkeena iyo muruqeena waa inaan ku garab gallo sidaa darteed taageeradayadu waa xisbiga kulmiye waan la garab joognaa xisbiga kulmiyeenu nahay waxaynu taageeraynaa gudoomiye Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle Muuse Biixi baynu taageeraynaa Sayliiciyo inankeenu taageeraynaa dhankiisa hadalka waxa qaatay Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle oo ah gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliland waxa uu si kaliya laaba u soo dhaweeyay inay codkooda iyo cududooduba la barbar taagan yihiin hogaamiyaha xisbiga kulmiye ahna mustaqbalka madaxweynaha mustaqbalka dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland xafladii weyneyd ee taageerada iyo cududda uu reerku la barbar taagan yahay kulmiye waa qabsoomi doontaa iyadana taa oo bashaareynayna dadka iyo tolkaba inagu waxaynu ku dadaalaynaa inaynu si xaraga leh sharaf leh qiimo leh codkeena iyo cududeennaba iskula barbar taagna xisbiga kulmiye si kastaba ahaatee waxaa durba bilaabatay dardar siyaasadeed oo xisbiga talada dalka ee kulmiye uu ka bilaabay gudaha gobolka Awdal Jaamac Xuseen Jaamac Dude Somali Cable TV Boorama